Assalaamu calaykum asxaabay meel walba aad joogtaan waa anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi kuna soo dhawaada kanaalka Arrimaha Fanka. Halkaan maanta waxaa kugu soo gudbin doonaa aflaanta tiyaatarada Hindiya saaran iyo ganacsiga ay sameeyeen iyo qaabka ay ku furmay filimka Good News. Filimka Good News oo hogaamiyaha ka yahay superstar Akshay Kumar ayaa wadada hit ku noqon lahaa durbacagta saaray asigoona weliba kaliya hal maalin tiyaatarada Hindiya saarnaa. Filimka Good News ayaa shalay keenay 17.50 karoor sida ay shabakada Box Office soo warisay, wuxuuna filimkan si weyn uga gadmay Delhi iyo East Punjab asigoona halkaas lacagaha Good News maalintii shalay aad keenay ayaa waxa ay ka dhigan tahay in filimkan ugu yaraan 3 maalmood ugu horeyso ka talaabi doono 60 karoor, waxaana macquul ah in uu gaari doono 70 karoor asigoona weli uu sii dhiman yahay fasaxa sanada cusub ee 2020. waa filimkii afraad ee Akshay sanad gudihiisa hit dhameystiran u noqon doono iyo filimkii 14aad oo xiriir ah oo u guuleysato, waxaana haatan la moodaa in Akshay Kumar sameynta filimada hitka aysan wax dhib uusan ku qabin. Filimkan sidee uu hit ku noqon karaa, sidee uu super hit ku noqon karaa iyo sida uu blockbuster ku noqon karo. Filimkan waa haddii uu gaaro 125 karoor hit ayuu noqon karaa, halka super hit uu ku noqon karo marka uu gaaro 150 karoor. blockbuster waxa uu ku noqon karaa marka uu gaaro 180 karoor. Filimkan ayaa galay kaalinta 11aad filimada lacagaha ugu badan soo xareeyeen maalintooda koowaad. Aflaantan qaar ka mid ah waxa ay heleen fasax qaran halka qaar kale aysan helin fasax qaran. Dhanka kale filimka Dibakatiri ayaa sameeyay hoos u dhac jimcadiisa labaad maadaama filimkan tiyaatarada ugu badan kala wareegay filimka Good News. Dibakatiri waxa uu soo xareeyay lacago gaarayaan 2.75 karoor, waana lacago aad u yar, waxaana loo badinayaa in uusan gaari doonin 150 karoor cimri ahaantiisa maadaama filimkan qabsadeen mashaakil iyo dhibaato xilliga uu ganacsiga fiican sameyn lahaa. Isbuuciisa koowaad waxa uu keenay 113.70 karoor, halka isbuuciisa labaad uu keenay jimcadiisa labaad uu keenay 2.75 karoor. wadarta guud waa 116.50 karoor. waxaana halkaan ugu eg warbixinada maanta ku soo qaadanay labada filim ee tiyaatarada Hindiya saaran iyo ganacsiga ay sameeyeen. fadlan subscribe saar, gambaleelka riix si aad muuqaal walba aan soo dhigno ay kugu soo dhacaan. waad mahadsantahay daawashada aad daawadatay.